iyadoo ahayd sanadkii hore markii dawladda Denmark ay shaaca ka qaaday in dad gaariya 800 oo qof oo Soomaaliya ay dib u qiimeyn ku sameyn doonto deegaanshahooda sharci ee ay dalka ku joogaan ayaa haatan warbaahinta dalka Denmark waxay sheegaysaa in 74 qof laga noqday ogolaashihii sharci laba kamid ah dadkaas ayaa lagu wargeliyay inay wadanka kaga baxaan sida ugu dhaqsaha badan shacabka Soomaalida ee reer Denmark oo arintan aad uga warwarsanaa dhowrkii sano ugu dambeeyay ayaa aaminsan in dawladda Xasan Maxamuud heshiis dib u celinta magaalgalyo doonka la gashay dhigeeda Denmark balse danjiraha dawladda Soomaaliya oo qaabilsan midowga Yurub Ali Saciid Fiqi oo la hadlay wargeyska Politiken oo ka soo baxay dalka Denmark ayaa sheegay inaanay jirin wax heshiis ah oo ay wada galeen dawladaha Denmark iyo Soomaaliya dhanka kalena Martin Henriksen oo ka tirsan xisbiga xaq jirka ee magaciisa loo soo gaabiyo DF ayaa wax uu kama jiraan ku tilmaamay jawaabta danjira Saciid Fiqi isla markaana uu yahay fariin aan lagu farxin balse waxa uu ku adkaystay inay si socon doonto hawsha ka shaqeynta codsiyada dadka dib loo eegayo magaalgalyadooda dawladaha Denmark iyo Norway ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay bilaabeen hawlgallo ay ku sheegeen dib u qiimeyn lagu sameeyo dadka Soomaalida ah maadaama dawladuhu aaminsan yihiin inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo aan xaq u lahayn in la siiyo magaalgalyo rasmi ah si kastaba ahaatee labada dawladood ayaa baaris ku sameeyay dad kor u dhaafay 1,000 qof dadkan oo iyagu hore uga helay dawladaha magaalgalyo ayaan ilaa iminka garan sababta dib u eegis lagu sameeyo maadaama dawladahaasi markii hore ku soo dhaweeyeen dalalkooda Khadar Shaani Home Cable Sweden